ee magaalada Hargeysa. waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta maayarka caasimadda Hargeysa Sheekh Almis Yaxya Sheekh Maxamed Aadan iyo mas'uuliyiinta mu'assasatul Karam iyo culimo awdiin kale. madaxa xidhiidhka dadweynaha shirkadda Soo Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakoob ayaa ka hadlay ulajeedada tartankan inuu yahay kor u qaadidda kitaabka Ilaahay. xaaji Cabdilaahi Maxamuud Aadan oo ah gudoomiyaha mu'assasatul Karam oo tartankani u qabatay 60 xufaad Quraanka Kariim. maanta waxaynu gunaanadaynaa xafladaynu furnay maalinteedii ama arbacadii dhaweyd ee ahayd tartankii Quraanka ee ay qabatay shirkadda Soo loogu magac daray mulkiilaha kambaniga Maxamed Aw Saciid. maanta tartankii baa inoo soo gabagaboobay Ilaahay fadligii. maanta waxaynu abaal marinaynaa guulaystayaashii tartanka ka guulaystay. tartanka anaga ujeedadiisu waxay nooga ahay kor u qaadidda kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, dhiirigelinta ardayda sida kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. maanta waa noo sharaf inaanu kambanigu iba furay tartanka Quraanka Kariimka. san hore u sheegnay tartankani noqon maayo kii u dambeeyay ee sanadada dambe biidnillaahi ta'ala kariim. waxaan rajaynaynaa inaanu Soomaaliland wada gaarsiino oo tartan gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda xufaadda ah joogta laga soo xulay uu noqdo oo aynu isugu iman doono rabadaanteeda biidnil mawla madal intan ka weyn iyo maxay ahaydey arday intan ka badan oo aynu abaal marinayno. xaaji Cabdilaahi Maxamuud Aadan oo ah gudoomiyaha mu'assasatul Karam oo tartankani u qabatay 60 xufaad Quraanka Kariimka ah oo ka kala socday degmooyinka caasimadda Hargeysa ayaa isaguna sheegay in xufaadani ay ka soo baxeen 20kii arday ee ugu sareeyay. waxaan u mahadnaqayaa lajnadii musaabaqada soo qaaday. waxaanan ilaaweynin shirkadda Soo oo maalgelisay musaabaqadan oo uu ku matalayay Sheekh Cabdirasaaq Xasan Rakoob oo runtii aan oran karo amal weyn ayay qabteen. tartankani wuxuu dhex maray degmooyinka caasimadda Hargeysa. ardayda ku tartantana 60 arday bay ahaayeen. wareegii labaadna waxa isku soo haray 20 arday. 20kiina waxa ka soo dhex baxay 5 arday oo iyaguna si gaar ah u guuleystay iyagoo runtii la wada guuleystay. waxaynu abaal marin doonaa 5 arday. Sheekh Maxamed Aw Aadan iyo Sheekh Almis Yaxya ayaa iyaguna ka waramay qiimaha uu leeyahay xifdiga Quraanka Kariimka, waxaanay soo jeediyeen in tartankani Quraanka ee xaaji Maxamed Aw Saciid laga dhigo mid gobolka Maroodi Jeex sanad walba loo qabto. oo meel Quraan lagu hadal hayaa waa meel khayr lagu hadal hayaa. dad kitaabka Ilaahay xafiday wajigoodu waa iftiin, laabtoodana Ilaahay baa dhigay kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. أجوج لا أجوج ساعدها لا أكفرديا وخير يوحويان يفرحد ويا هدي اسكو قبطان قرب كده اسكو قبطان أو إلا بكره حاضي أو مدة كملي هدي هشيان إن يدن مدة ولا قاجيان وحلا هذا حضارة يا البحر موين بعد قاقلا وأيو ومال قبانك يا علماء مال قبانك ومد المال والعلم labadaasi haday isafgartaan oo ummadda ilaahdaan dhan baan u jihaynanaa dhan baan u dhaqaajinanaa xadaarad islaami oo idilina waxay salka ku haysay awqaaf iyo tujaar waaweyn iyo culamo fahamta tujaartii wadanka waxaaji inuu Saciid matalayo oo shirkadiisa ay fadhino iyo diinta wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culamadii oo isla afgarta ubad ba soo saarnaa diintoodu ka dhisan tahay, aqoontu ka dhisan tahay, akhlaaqoodu ka dhisan tahay oo biritool aan ugu talagalno hogaankii wadanka dadkii noqon lahaa. waxaan rajaynayaa mashquulka badan laakiin maanta xaruntiisii hadaanu joogno oo tartan Quraan isugu nimid waxaan isleeyahay malaa Maxamed Aw Saciid oo malaa waa bilowday laakiin wax weyn dareen weyn wax weyn baa laga sugayaa oo kale. dadku waa dad waaweyn, umriguna wuu socdaa, aakhirana waa la tagayaa. camalkayna raacayaana waa ka aynu hormarsano. marka khayrkana waxa la yiri u kala dheeray fastabiqul khayratka u kala dheereeya la isma amaahiyo khayrka waa loo kala dheereeya yaan laga dheerayn. barnaamijyo waaweyn baa laga sugayaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisana wax badan kaaga noqda. kuwa ugu waaweyn waxa kamid ah barnaamijyada Quraanka waayo Quraanku waa kugu doode ama ku doode
marka inuu adiga kuu doodo ayaan rajaynaynaa adigana runtii kulankaa hore isugu keen dambeeyeyna barnaamij wanaagsan baad noo sheegtay iminkana waan kuugu mahadnaqaynaa inaanu maanta xafladaa ka soo qayb gallo adigana waxaan kugula talin lahaa iyo barnaamijyada khayraadka ee fara badan ee kale inaad ka qayb gashaan maayar cabdiraxmaan maxamuud caydi solteko oo madashani ka hadlay ayaa sheegay in ardaydani ay ka socdeen degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa waxaanu mulkiilaha uu ku bogaadiyey xaaji maxamed oo siciid tartankani quraanka kariimka ee bisha barakaysan uu qabtay xaaji maxamed oo siciid lacagta dad badan bay soo gashaa lacagtu laakiin dadka qaarna lacagtu way leedahay qaarna iyaga leh xaajiga inuu halkan iyo meel ka badan ba ku bixin doono sida ugu horo wadanka marka loo tago meel halkaas ay wax ka dayacan yihiin uu aad ugu bixiyo aad baan ugu mahadnaqayaa tartankana way ka kowdhin doonaan waxay noqon doontaa iyaduna gobolada oo dhan amba Somaliland haddii alla yiraahdo waxaana lagu dari doonaa insha Allah taala si ay hooyooyin xufaad inoogu soo baxaan oo barta ardayda barana in tartanka iyagana lagu daro xagga hablaha annaguna inaanu sii wadno tiyaarkiiso insha Allah taala doorka dambe kala wareegno haddii alla yiraahdo waa kii sheekhu sheegay waa musharaxadan halkaygaas aanu sharaxnay haddaan ku soo noqdo insha Allah ballan baad ka qaadaya taana inaan wadno wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed waxa uu sheegay in quraanka kariimka uu yahay hagaha ummadda Ilaahay dunidana ugu talagalay ubadkeenana lagu la dadaalo tartansiinta xifdiga quraanka kariimka ah shirkadda Som Cable mulkiilaheeda xaaji maxamed saciid geedi uu inoo sameeyay iyadoo oo runtii akhyaar qiimo badan ay fadhiyaan maayarkeeni caasimadda sharaf bay inoo tahay dhammaanteen inaynu isugu nimaadno goob lagu cizeynayo laguna weyneynayo kitaabka Alle subxaanahu wa ta'ala sidaa awgeed runtii waxaan aad iyo aad u hambaliyanayaa ilaahay inuu waafajiyey maxamed saciid saaxiibkeen walaalkeen inuu qayb ka siiyo maalkiisa inuu ku cizeeyo kor ugu qaado oo ku sharfo kitaabka Alle subxaanahu wa ta'ala si uu noqdo qof sharfan waayo wax sharafta leh marka ka shaqeyso adba waa sharfan tahay kitaabkii Alle buu sharfay wuxuu isku dayay inuu ubadkeeni iyo dayarteeni uu ku tartansiiyo xagga xifdiga iyo qalbigeena ku hayaan kitaabka Ilaahay gabagabadiina muassasatul karam ayaa shahaado sharaf ay ugu tala galeen shirkadda soo guddoonsiisay shirkadda soona waxay abaalmarin guddoonsiiyeen 20kii arday ee ugu sareeyay iyadoo si gaarana loo abaalmariyay 5tii arday ee ugu sareeyay tartankani quraanka iyagoo la siiyay agabka internetka shirkadda soo lacag iyo sidoo kale kitaabka quraanka kariimka ah waxaana kaalinta koobaad ku guuleystay Cabdiwaasac Maxamuud Cabdisalaan kaalinta labaadna waxa ku guuleystay Cabdiraxmaan Daawud Xuseen kaalinta saddexaadna waxa ku guuleystay Saalax Cabdiraxmaan Cumar kaalinta afraadna waxa ku guuleystay Rudwaan Muxiyadiin Daahir halka kaalinta shanaad ee ugu dambeysana uu ku guuleystay